inuu maanta waxaa ka rabaa dawladdeena u helisay maxaa ugu helinaysiin wax dulmi oo ay samaynayso ugu helay idmadii aniga mawaqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo sida ula dhaqmayaan aniga aan aad u aaminsanahay shariicada islaamka ana meel ka waafaqsanayn hantida ummadda sharci darro ku qaataan dhiigooda sharci darro ku daadiyaan hadda maalmooda hotel xayaat ka dhacay wixii balweyne ka dhacay meel ay ku saamaxayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku waa dhageysanayaan laakiin inaan adiga dhaxdaanay dadka kasi dhageyso ogyihiin laana dadku waa ogyihiin manbaci sourcigi diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin hiila qarsoon hiila ma aha hiila qarsoon hiila ma aha dagaalkii caqiidada ahay oo sheegayo waay dawlad ugu helimaysaan xasan sheekh ugu helimaysaan ummadan 20 milyan ee Soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan aakhirna nin walba wuxuu tacbado oo la tagayay laakiin adduunyada intii joogaan magacan Soomaaliya ay wataan oo calankaas dawladda Soomaaliya la leeyahay yaan rabnaa inaan adduunyada korkeeda kuwa naga yaryaraa sharaf iyo karaamo ku nool inaan sharaf iyo karaamo ku noolaan dadka Soomaaliyeed waa marka waxaan isku haysanaa nimanka gurigeyga isku ma haysano anna gurigooda kuma haysto 20 milyan oo Soomaalida ah ayaan isku haysanaa ee boqolkiiba muslimiinta multizimiinta ee masaajidka subax wada kalayso waayo waxaan isku haysanaa nimankaasi marka annaga banaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanaa nimanka banaanku soo istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixii magacii kala doonaan hala baxaan laakiin diin ma aha in loo sheego waqtigeedina waa la joogaa waana ka hadashin waa ogaa idan mana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn maanta ma noolaalahayn haddii la iswarsanayo sheekh bashiir haddii maanta ay fursad ay heli karaan ama ay helaan inay qoorta ka goynayaan inaan ogna oo isku dayeen waana isku dayi doonaan waana wadi doonaan laakiin maxaa ka asala walow kuntum fi buruujin mushayyada يعني تاسك أصلا مال كستود كلها بطيء هذا عامست إيو هذا بريء اسكسو حرت إيو وان مالين تادي ياتيسام دad kuna inay dhiiradaan waxa uu raacday in la arkaan u sheegta dara qof walba ma soo dhimanahay baasaasiin ha raacin ha diinin dadka dawladda dagaalay kula jirtaan nimankaas mabda'aas dhibka badan in laga tanasuliyo dadka aan rabnaa nimankaas hadii ilaahay lagu guuleeyo oo xal u helnana waxaan rabnaa ebadiyan in aanu fikir noocaas dalkan ku soo noqonin inaan meel dhigno siyaasadeeda ka shaqeeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay boqol u dilay kun u dilay inaanay imaanin rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaajirnay hadii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helina wixii aan heli jirnayna nama anfacaya waa soo aragnay waa soo taabanay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa wax ka duwan si aan u halno si ka duwan inaan u dhaqanno waay si ka duwan inaan u dhaqanno waay horta maskaxdeena ba annaga horta isbedel hadaa rabtid isbedelku inuu adiga soo bilowdaa qaabka u warrami jirtay saadadku u sheegi jirtay waa in wax ka bedeshaa haddii kale isbedel ma imaanayo marka ilaahay idinka soo arintaas waxaan idinka baahanahay garab istaagaas inaad jidka banaanka u istaagtiin banaanka in loo soo istaago waa u taagantihiin boodo laga sii dhigo la sii xoojiyo la sii adkeeyo la sii ballaariyo